aniga oo ah dhibane Ciise Yuusuf Gadiid kuna nool degmada Dhuusamareeb da'dayduna ay tahay 74 sano cabasho ku saabsan qusayso ururka bisha cas ee Soomaaliyeed ee Dhuusamareeb degan oo iga dhacay xoogna iga haysta guriyo anigu aan leeyahay kooban yihiin 10 qol iyo deyd ku wareegsan suuli iyo barkad iyo dhul banaan waxay ku yaalaan xaafadda Dayax oo Dhuusamareeb cabashadaas waxa weeye 18 sano wada wax iga qabta oo dawladda ama dadweynaha ma jiraan ilaa hadda marka dadweynaha iyo dadka Soomaaliyeed oo waxgaradka waxaan ka codsanayaa hantideyda ururka bisha cas ay haystaan 18 sano in la iga qabto sida awgeed intaas oo sanana wax igala hadla waa waayay xoog baan la iga haystaa waxaan codsanayaa dadweynaha iyo dadka Soomaaliyeed wax garanaya oo mas'uuliyiinta dalka ka in hantideydaas dib la igu soo celiyo xoog la iga haysto ururka bisha cas oo Soomaaliyeed Dhuusamareebna iga haystaan ayadoo intaas ay socotay intaan aan qoraal waday wax ilaa hadda yiraahda ninka arintiisa aan wax ka qabano haday xukuumad tahay ama maamul goboleed tahay ama dadweynaha ay tahay midna ma jirto markii ugu horeysay guriyaha ururka bisha cas ee Dhuusamareeb yimid markay yimaadeen waxay yiraahdeen waxaan rabnaa deegaan aan degno oo aan kiriisanayn dadkana wax ugu qabano sida awgeed waxaan ku yiri ana insiinay dadka wax u qabanaysaan 1997 ayaan ku wareejiyay 3 sano aniga ayaa ilaalinaya weliba gacanta ku hayay 2000 ururka bisha cas niman ka socda oo ciidan wata ay yimid xabada la iga saar ilaa haddan sidii ku haysta xildhibaanada Dhuusamareeb yimid oo Maxamed Salaad Jawaahir Axmed Cilmi Shuuke dacwadaas waan gaarsiiyay odayaashii Soomaaliyeed la socday oo deegaanka Dhuusamareeb ahaa waan u gudbiyay jawaabigu ma soo celin qoraalkiina waa diyaar waan u gudbiyay koobigii aan ka haray waan hayaa qoraaladii badan aan gudbiyay kulli waan hayaa ururada maxalliga oo hay'adaha kulli badana waasi wax jawaab oo la siiyay ma jiraan bisha cas waxay yiraahdeen guriyaha ninka waa ka iibsan wax la iga iibiyana ma jiraan dukumiintigayga waan haystaa dadka deegaanka Dhuusamareeb jooga waa iga qaaneen guriyaha inaan anigu leeyahay ayaga suuqa soo gashaday waa ka iibsanay si ay guriyaha ku hantiyaan ku dhacaan oo xoog ay hadda ku haystaan ku xalaaleystaan dawladda federaalka galmudug nooc kasta sunna wa jamaa waxaan codsanayaa hantida xoog la iga haysto in ninka xoog iga haysto ururka bisha cas la iga soo celiyo xoog bay iga haystaan waxaan ka iibsaday ma jiraan xabad baa la iga soo saaray 2000 qoraalkan ka qoray maalintii xabadda la iga soo saaray waa hayaa gacanteedu ku jira waxaan ku fadhiyaa dhul ahaantiisa 40 lagu dhiftay 30 marka la isku dhifto 1200 mitir isku wareega waxaan hantiyay oo dawladda maxaa soo baraan ka hantiyay 1977 dukumiintigana waan haystaa gacanteedu ku jira